ma ka mid tahay dadka jecel inay ilkahooda quruxsadaan. waxaan hadda gacanta ku hayaa wax loo yaqaano tooth jewelry ama Soomaalihaan loo yaqaano fiska ilkaha lagu qurxiyo. muuqaalkan ayaan kugu sharxi doonaa faa'iidooyinka ay leeyihiin iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay leeyihiin. balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kale tan la wadaagtay saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوا دمان صاحبيال si aad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtaybo muuqaalka maanta waxaan rabaa inaan ku sharxo waxa caafimaad ahaan loo yaqaano dental jewelry oo ka mid ah waxyaabaha ilkaha lagu qurxiyo. dental jewelry waxaa Soomaali ahaan loo yaqaano fiska ilkaha lagu qurxiyo ama dahabka ilkaha lagu qurxiyo. marka muuqaalka waxaa kugu sharxi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay, dhibaatooyinka uu leeyahay iyo sidoo kale noocyada loo kala qaybiyo. inta badan fiska ilkaha lagu qurxiyo waxaa loo isticmaalaa ilkaha loo yaqaano dholasha iyo sidoo kale tamiciyada. marka ugu horeyso iliga ayaa la diyaari doonaa, kadibna waa la nadiifi doonaa, kadibna waxaa lagu daldhijin doonaa fiska ilkaha lagu qurxiyo. fiska ilkaha lagu qurxiyo run ahaantii wuxuu leeyahay noocyo aad u badan. waxaa jiro nooc u samaysan sida xidigta oo kale, waxaa jiro sidoo kale nooc u samaysan sida loofka ama jaceelka oo kale, sidoo kaleeto waxaa jiro nooc u samaysan sida diamondka oo kale, sidoo kaleeto midabyo kaleeto oo ka duwan buu leeyahay. waxaa jiro saaxiibo badan oo soo weydiiyay su'aasha ah fiska ilkaha lagu qurxiyo ama wax loo yaqaano dental jewelry-ga wax dhibaato ah miyuu u geysanayaa ilkaha. haddii aan su'aasha jawaabteeda soo koobo waa maya, wax dhibaato ah uma keenayo fiska ilkaha lagu qurxiyo ilkaha ama si guudba afka. sababtoo ah waa wax yar oo loogu talagalay in iliga dushiisa lagu duljiyo. hadhow haddii aad nacdidne si fudud ayaad iskaga qaadi kartaa. balse dhibaatada isleeyahay ama ku arkay waxa ka mid ah inuu hadhow si fudud ku soo dhici karo. tusaale ahaan haddii qaabka loo dhigayo ama qaabka loo dhajinayo oo dhakhtarka uu qaldo, ama haddii aad si xoogan u cadaysatid marmarka qaar waxaa dhici karta inuu soo dhaco. balse waa qalab yar oo aad u qurux badan oo run ahaantii haddii aad jeceshahay inaad dhool cadeyntaada qurux badnaysiisid waxaa kugula tali lahaa inaad samaysatid wax loo yaqaano dental jewelry. faa'iidooyinka uu leeyahay wax loo yaqaano dental jewelry-ga ama fiska ilkaha lagu qurxiyo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano quruxda. run ahaantii dadka inta badan samaysto waxay u samaystaan qurux ahaan. marka haddii aad rabtid inaad dhool cadeyntaada qurux badnaato waa samaysan kartaa wax loo yaqaano dental jewelry-ga. haddii aad jeceshahay inaad samaysatid fiska ilkaha lagu qurxiyo waa samaysan kartaa run ahaantii wax dhibaato ah uma keena ilkahaaga, wuxuuna ku siinayaa qurux dheeri ah. haddii aad jeceshahay inaad samaysatid waxaa la xiriiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqdo. haddaba sidee ayaa u aragtaa fiska ilkaha lagu qurxiyo? qaybta hoose faalada igula wadaag fikirkaaga. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashadaada muuqaalkan, waxaan mar kale ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto sidoo kale tan aad la wadaagtay saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.